kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka ugu doorkaroon dalka media. dowladda federaalka Soomaaliya oo ka hadashay shirka ka socda magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland. gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID oo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya eedan kulul u jeediyay dagaalamayaasha al-shabaab oo hub ka furtay ciidamada Kenya kadib dagaal xooggan oo dhaxmaray ciidamada ammaanka wadooyin hor leh oo soo gala madaxtooyada Soomaaliya oo dhagaxaan ku jaray iyo golaha militariga dalka Suudaan oo ku dhawaaqay in ay dalkaasi ku maamulayaan shariicada Islaamka. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan daawadayaal, balse aan ku bilaabo magaalada Muqdisho. Ra'iisul ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa ka hadlay shirka ay magaalada Garowe ay ku leeyihiin madaxweynaha dalka, ra'iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada oo xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho. ra'iisul ku-xigeenka ayaa madaxda ugu hambalyeeyay shirka ay ugu tashanayaan aayaha dalka, wuxuuna rajeeyay in shirkaasi ay ka soo bixi doonaan natiijo wanaagsan oo waxtar u leh mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed. Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa sheegay in uu shirka u socdo si rasmi ah, waxa uuna shacabka Soomaaliyeed ka dalbaday inay garab istaagaan madaxda dalka una soo duceeyaan. waxaan doonayaa in ummadda Soomaaliyeed la wadaago meeshii laba qof oo Soomaaliyeed ama laba mas'uul oo Soomaaliyeed oo wanaag Soomaaliyeed ka shaqeynayaba isugu yimaadaan inaynu la shaqeyno u duceyno bisha barakeysan ee Ramadaan isna barbar taagno guulnayno ugu dhamaadaan arrimaheena qaran ahaan iyo ummad ahaanba Ilaahay dhimkiisa. magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland waxaa shir ugu socda maalintii shanaad madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaasi oo qaarkood isku marila qodobo inta badan ay ku kala tagsanaayeen isla markaana khilaafka xooggan uu ka dhaxeeyay. maalintii shalay ahayd waxaa shirkaasi ka baxay sida la sheegay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf, kaasi oo la sheegay in muddo hal sano loogu daray xilhaantiisa kadibna arrintaasi uu si xooggan uga hor yimid, wuxuuna sheegay in ay ku dhaqmayaan dastuurka maamulka Galmudug isla markaana muddo hayntiisa ay ka dhimantahay 3 sano. gudoomiyaha xisbiga mucaaradka UCID ayaa ku eedeeyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in uu doonayo inuu qabyaaladeeyo shirkadaha qaadaya xujayda Soomaaliyeed. Faysal Cali Waraabe oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre ay dhibaato ku hayaan ummadda Soomaaliyeed oo ay doonayaan inay xujayda ay qaadaan shirkada ay leeyihiin shakhsiyaad ay isku beel yihiin. waa wax laga xumaado ayuu ku tilmaamay in maanta mas'uuliyiinta dowladda ay siyaasadeeyaan dadka Soomaaliyeed ee xajka aadaya, isagoo beesha caalamka ugu baaqay in dhulka Soomaaliyeed laga qabto Khayre iyo Farmaajo. waxa weeye inta arinta u gelin maamulka Muqdisho ee marka Farmaajo iyo Khayre madaxda ka yihiin haddii aan dhulka Soomaaliya aan laga qaban waxaan ka yaabaa in dhulkaas marka hore nabad aan ka jirin ciidamada shisheeye joogaan khayraadkooda la guranayo inay fawda ay geliyo marka yaabaya dagaalo sokeeyo ay geliyaan. lan waxa weeye muraadu sita Farmaajo waa muraad qabiyaaladeed, wax kasta qabiil uu ku eegay. shirkadaha xajka qaadi jiray labada shirkadood baahaynee Daalo iyo waxay Juba waa shirkada Soomaaliyeed, wuxuu u arkay shirkada qabiil marka wuxuu damacsan yahay inuu wixii qabiilka u bedelo shirkada yar oo reer ahaan u doonayo lacag ugu sameeyo. hadalka hogaamiyaha mucaaradka ee UCID ee Somaliland ayaa wuxuu imaanayaa iyadoo qaar ka tirsan maamul goboleedyada dalka ay ka hor yimaadeen guddiga ay u xil saartay wasaaradda diinta iyo awqaafta ee xukuumadda Soomaaliya isla markaana soo xulaya shirkadaha u tartamaya xujayda Soomaaliyeed ee aadaya sanadkan xajka. maamul goboleedyadaasi waxaa ka mid ah oo ka hor yimid go'aanka ay gaartay wasaaradda diinta iyo awqaafta ee xukuumadda Soomaaliya, maamulka Puntland iyo maamulka Galmudug, kuwaasi oo bilooyinkii la soo dhaafay khilaaf xooggan u dhaxeeyay dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyadaasi. waxay faahfaahin dheeraad ay ka soo baxayaan weerar ciidamo ka tirsan kuwa Kenya lagula eegtay deegaan u dhow magaalada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya, weerarkaas oo geystay khasaare kala duwan. wararka ka imaanaya gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa waxay sheegayaan in ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay weerar dhabagal ah ku qaadeen kolonyo ka tirsan ciidanka militariga Kenya xilli ay ku socdaalayeen nawaaxiga tuulada Garmay oo ka tirsan gobolka Wajeer. ilwareedyo ayaa sheegaya in khasaare dhimasho dhaawac leh
ee ciidamada Kenya uu ka soo gaaray dagaalkaasi isla markaana weerarka xoogan ay ku soo qaadeen dagaalamayaasha Al-Shabaab. ugu yaraan meydka hal askari ayay ciidamada Kenya ugu carareen goobta uu dagaalka xoogan ku qabsaday. khasaaraha dhaawaca ee ciidamada Kenya ka soo gaaray dagaalkaasi ayaa loo qaaday isbitaal ku yaala magaalada Wajeer iyo Mandera ay ka tirsan gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaas lagu qaaday gaadiid ay la socdeen ciidamada Kenya iyagoona sheegay in ay ku dileen hal askari sidoo kalena ay ka qabsadeen 4 qori oo iskugu jira qoryaha AK47 iyo qoryo kale. ilaa iyo hadda wax war kama soo bixin dowladda Kenya oo ku aadan weerarka khasaaraha dhaliyay ee ciidamada Kenya lagu qaaday isla markaana marayay gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. ciidamada Kenya ayaa waxay wajahayaan dagaalo xoogan oo kaga imaanaya dhinaca dagaalamayaasha Al-Shabaab iyadoo mararka qaar dagaalo xoogan ay dhaxmaraan ciidamada Kenya iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa waxay mararka qaar weerar ka geystaan gudaha dalka Kenya kuwaasi oo khasaare gaarsiiya shacabka dalka Kenya. ciidamada Kenya ayaa mararka qaar waxay dagaal xoogan ay la galaan dagaalamayaasha Al-Shabaab. ciidamada ammaanka ayaa wadooyin hor leh dhagaxaan ku jaray kuwaasi oo inta badan ay isticmaalayeen shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho. wadooyinka dhagaxaanta lagu jaray ayaa waxa kamid ah wadooyinka soo gala agagaarka madaxtooyada Soomaaliya kuwaasi oo markii hore u furnaa dadka shacabka. wadooyinka soo gala taalada Darjinka Daasoon ayaa waxa inta badan la dhigay dhagaxaan kuwaasi oo markii hore dadka shacabka muddooyinkii dambe ay isticmaalayeen. ammaanka magaalada Muqdisho ayaa aad loo adkeeyay iyadoo ciidamo tiro badan lagu soo daadiyay wadooyinka magaalada Muqdisho kuwaasi oo baaritaan xoogan ku sameynaya gaadiidka iyo dadka shacabka ah. ciidamada ammaanka ayaa sidoo kale wadooyinka magaalada Muqdisho dhagaxaan ku jaray kuwaas oo dadka shacabka intooda badan ay ka qoosteen. magaalada Muqdisho wadooyinkeeda ayaa inta badan ah kuwa ay dhagaxaan yeelaan isla markaana mararka qaar aan loo ogoleen gaadiidka inay maraan. bilooyinkii la soo dhaafay magaalada Muqdisho ayaa ahaa ammaankeeda mid aad loo adkeeyay. hogaamiyaasha mucaaradka ayaa golaha u gudbiyay liis ay ka dalbanayaan dowladda ku meel gaarka ah kadib markii bishii Abriil xilka laga tuuray madaxweyne Umar al-Bashir. tamo xubnood ee golaha militariga ayaa sheegay inay shaki badan ka qabaan fikirka ay soo jeediyeen iyo mudaharaadyaasha oo ka gaabsaday sharciga Islaamka. wadahadaladii u dhaxeeyay militariga iyo mucaaradka ayaana wax heshiis laga gaarin ilaa iyo hadda. dibadbaxayaasha ayaa waxa militariga u gudbiyay isbahaysiga xuriyadda iyo isbedeldoonka oo ka kooban xisbiga qolyaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha iyo xisbiga mucaaradka intaba. arbacadii la soo dhaafay Khalid Umar oo ah xubin ka tirsan xisbiga DFCF isla markaana ah dadka ugu cadcad xisbiga Kongareeska Suudaan ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan diidmada nabadaysan ee ka dhanka xukuumadda ilaa iyo ay ka rumowdo riyadooda. General Shimidini Kabashi oo ah afayeenka golaha militariga ee sida ku meel gaarka u haya talada dalkaasi ayaa la wareegay xilka kadib markii xilka laga qaaday al-Bashir ayaa wariyaasha u sheegay in ay si wanaagsan u aqbaleen baaqooda. dastuurka dalka Suudaan ayaa waxa uu hadda dhigayaa in shariicada Islaamka ay tahay sharciga lagu xukumo dalkaasi. dibadbaxayaashu waxay soo jeediyeen in xaalad degdeg ah loogu dhawaaqo dalkaasi. hase ahaatee golaha militariga ee sida ku meel gaarka u haya talada dalkaasi waxay aaminsan yihiin in ay tahay mas'uuliyadda maamulka cusub oo aan weli la magacaabin. guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa daawadayaal warkii aad ka daawanayseen Dalkaab Media. intaan warkan oo kale ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.